duqa caasimadda Somaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Solteko oo ay wehelinayaan ugaas Maxamed Ibraahin Cabdilaahi Jabane iyo welibana murashax Maxamed Cabdilaahi Diiriye ayaa waxa ay si wada jir ah u dhagax dhigeen saldhig cusub oo laga dhisi doono degmada Balliga Cas ee duleedka magaalada Hargeysa. Haddaba waxaa hadalka iska daba qaatay ugaas Jabane iyo welibana murashax Maxamed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta aad iyo aad ugu mahadcelinayna meerka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Solteko oo halkan dhagax dhigay stationkii maxay yeelan lahayd magaalada Balliga Cas. waxa kale oo intaa si dheer meeyarku inuu yahay meeyarka qura ee wax ka qabtay magaalada Balliga Cas intii wax laga qabanayay horana xanaanada oo xanaanada gacan weyn uga geystay imikana dhameystirkeedii ku ballan qaaday. marka aad iyo aad baan meerka ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maxay ahayd wax qabadka aad u qabatay magaalada Balliga Cas. waxa maanta halkan aan u nimid maayarka caasimadda Hargeysa uu noogu yimid in uu halkan dhagax dhigo saldhig laga dhisayo magaalada Balliga Cas taasi oo horena wax qabad socda imika oo klinikya ah oo mashaariic badan uu qabtay isagu una ballan qaaday imika in uu ila tombalinkii ilaa wixii halkan ay u baahnayd inuu u qabto. aad baan ugu mahadcelinay magaalo ahaan iyo deegaan ahaanba si mugla baan ugu mahadcelinaynaa maayarka caasimadda Hargeysa wax qabadkiisa qiimaha iyo qaayaha leh ummadiisa ku horumarin. maayir waxaan kugu soo dhaweynaynaa in aad halkan oo qaybta hore ee la dhisay lafteeda adigu aad wax qabadkeeda lahayd waxna ay shacbigu qabsadeen saldhiggii booliska ee asaaska halkan u noqon lahayd maadaama ay caasimadda meesha ugu soo xigta tahay jidkii laamaydiina imika uu ku soo dhow yahay in aad noo dhagax dhigto oo aad wax qabadkaaga kuwii hore aad qabatayna waanu kaaga mahadcelinaynaa kanna aad imika noo dhagax dhigtaan kugu soo dhaweynaynaa maayir. gabagabadiina waxa uu maayirku dhagax dhigay saldhigga cusub ee laga hirgelin doono degmada Balliga Cas ee duleedka magaalada Hargeysa. sharaf weyn bay noo tahay iyadoo wadadiina ku soo socoto in wax laga sii yaga qabto deegaanka dadku ma ku dhaqaaqa ee uu isu tago ee wax qabsado dawladuna wax bay la qabanaysaa. waa dhab musharaxa aad u firfircoon dhaqdhaqaaqu sameynayay socodku socday iyo gudoomiyaha magaaladuba waxay keenaysaa in lagu dhiirado hadday noqoto qoladii joogga ahayd hadday noqoto dawladdu marka wixii la timaadeen ayay wax idinku daraysaa sidii aan imika xanaanada dhamayska ku dhow ku wadnay saldhigana sidaas leeyahay inaanu qaybsanay ku dhownahay saasaynu ku dhex dhigi doonaa macallimiinta inoogu weyn Maxamed Qaalib ee nala jooga insha Allah ta'ala waxay noqon doontaa inay soo dhaqsaha badanna ay u dhamaato dhammaantiin aad baa u mahadsantiin. Axmed Midnimo, Kelson TV, Hargeysa.